Allah hooyo, it's raining cats and dogs. Na maxaa tiri? Waxaa da'aya bisado iyo ay. Na maxaa ka wadaa? Hooyo, waxay la manataa roob badan baa da'aya. Waa idiom. sarbeeba camal af Soomaaliya ku dhex karnaa. Marka u fasirtid af Ingiriisiga sida xarfiga ahaan, macna qalad ay ku soo baxaysaa, laakiin waa idiom, macna khaas, macna gaar buu leeyahay. Yani roob badan baa da'aya. It's raining cats and dogs. haddan ku fahmay. Waa runta, sax. Waa sarbeeba camal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادة شلكيغا وان السلامي. مانتا فيديوغا وحن يسو دياري idiomatic expressions. idiomatic expressions حلو معناتها يعني af Soomaali ku dhaha karnaa sarbeebaha. يعني marka tarjumaysid kelimadaha mise ereyada xarfi ahaan marka u tarjumtid macna oo sax ma keenayso, laakiin jumla ahaan, expression ahaan, phrases ahaan loo isticmaalaa. So insha Allah maanta kuwaas isla baran doonaa. aad iyo aad loo isticmaala wada hadalka af Ingiriisiga dadka oo native speaker-ka, yani dadka luqadda asligeeda ay tahay af Ingiriisiga aad iyo aad u isticmaalaan. So u baahantiin inaad garatid. insha Allah maanta konton idiomatic expressions aan soo diyaariyay. So kontonkaas waa inta ugu isticmaalka badan ee af Ingiriisiga. Darsigan dhamaadkiisa ila daawada insha Allah. Darsi muhiim waaye. So let's go. hadda bilowna darsigeena. Okay, waxaan dhahnay idiomatic expressions, yani waa jumladahaasna macna gaar bay leedahay. Mesela waxaan dhahnay it's raining cats and dogs, yani roob badan baa da'aya ila manaatahay. Laakiin marka tarjumtid af Ingiriisiga ila af Soomaaliga, macnaha tarjumaha oo xarfi ahaanta waa sidan, yani waxaa da'aya bisad iyo ay. Laakiin bisad iyo ay baa da'aya lama macno aha. waxay la macnataa yani roob badan baa da'aya, yani sarbeeba camal. yani mise it's piece of cake, yani waxay la macnataa aad u sahalsanta, wax sahalsan. piece of cake, yes. يعني piece of cake marka tarjumtid xarfi ahaan waxay la macnataa qayb cake ah, laakiin qaybka oo cake ah ma la macno ah. waxay la macnataa yani wax aad u sahalsan. So qof oo native speakers ku imaan kara wuxuu dhihi karaa Allah imtixaankan it was a piece of cake. So wuxuu ka wadaa imtixaanka aad u sahalsanaa. So intaas idiomatic expression ni soo diyaariye. hadda aan bilowno midda koobaad waxaa waaye to bite off more than you can chew. yani haqaniinin wax ka badan waxa aad celiilan karto. elementa xarfi ahaan marka u tarjumtid, laakiin xarfi ahaan tarjumadaas waa qalad. waxay la macno tahay to bite off more than you can chew, inaad hawl kaa weyn aad qabato, hawl adiga awooddaada ka weyn inaad qabato. elementa tahay example-kana isla fiirino. Maybe we're biting off more than we can chew. He bite off more than he could chew when he tried to finish the project in one day. yani asaga hawl ka weyn uu qabtay markuu tijaabiyey, markuu damcay inuu mashruuca hal maalin ku dhammeeyo. yani asaga wuxuu qaatay hawl asaga ka weyn. elementa tahay idiomka xarfi ahaan marka u tarjumtidna waxay elementa tahay wuxuu qaniinay in ka badan intuu caliilan karo. elementa marka xarfi ahaan u tarjumtid, laakiin macnaha oo gaarka uu leeyahay waxaa waaye inaa hawl adiga kaa weyn aad qabatid. Okay, number 2. Are we on the same page? Are we all on the same page? To confirm that everyone has the same understanding, opinion or viewpoint. يعني are we on the same page marka la dhaho, yani waxay la macno tahay anaka isla fikrad ma nahay camal. elementa tahay yani fikradda ma qaadanay camal. elementa tahay example استفيرنا. Are we on the same page about the exam date? يعني استفكرت ما هاي كسابسان تاريخ ذا امتحانك، يعني تاريخ ذا امتحانك استفكرت ما يعني وقت قاس ما سمعنا. هل فكرة مثل قبنا اتفقنا عمل elementa هاي are we on the same page. Number 3. Sorry, I'm tied up. tied up يعني وحلا معناتها أنيقا هذا مشغول صنع عمل elementa هاي tied up. Number 4. under the radar يعني وحلا معناتها هاي إنه واحد أو قفنا dareemin oo qofna dareenkiisa la soo jeedin. example kana istafirino. He likes to keep his plans under the radar. yani asaga wuxuu jecel yahay inuu qorshahiisa inuu qofna inuu ogaanin, qofna inuu dareemin. yani qorshadiisa uu ilaaliyaa, cidna uma sheego, cidna dareenkiisa ma soo jeediyo. Number 5. start from scratch, meaning to begin something from very beginning without using anything already done.
We're starting from scratch. waxay la macno tahay in wax laga bilaabo bilowgiisa hore iyada oo la isticmaalin wax horey loo qabtay. Example-kan nasta fiirino. If the cake fails, we will start from scratch. يعني keegana hadduu noqon waayo bilowgan ka bilaabayna mar kale camal ila macno tahay. Start from scratch. Number 6. Take a chill pill. يعني waxay la macno tahay go and relax. يعني tag oo isdeji. Take a chill pill. It's just a small mistake. يعني isdeji, isqabooji. kaliya waa qalad yar camal ila macno tahay jumlada. Number 7. Don't add insult to injury. Meaning, don't make a bad situation even worse. يعني حالة حن هسي حمين عمل إلى ما تهاي. Example كنا السفير إنه She was already late. So the traffic jam added insult to injury. يعني ضربة ويدا هذي سيداس أوجد سحمد ودوينكا أيا وضعيقا سي حميسي سي كردسي حمين أيا وضعيقا سي حميسي إلى ما نتهاي جملة دا. Number 8. Hold your horses. Hold your horses. Hold your horses and listen to me. يعني حوغا سوق وانيقا إمقال. So hold your horses يعني حوغا سوق إلى مناتهاي. حوغا سوق. Wait a moment. Hold your horses. Number 9. Hit the hay. Hit the hay. يعني وحلا مناتهاي go to sleep. إنا تسيحتد. Example. It's late. Let's hit the hay. Let's hit the hay. يعني أنبحنو أنصيحنو إلى مناتهاي. Hit the hay. صيحشو هردو أنبحنو أنصيحنو hit the hay. Number 10. You hit the nail on the head. You hit the nail on the head. Meaning, you are exactly right. You say the correct thing. حلما نتهي وصحصن تهي سصح وحصح الشكت وحي يقول صحصنا الشكت إلما نتهي. Example كان أستفير إنه You hit the nail on the head. That's the exactly problem. That's exactly the problem. يعني سصح وحصح ذا وصحصن باشكتي تاسي ومشكلة دي. taasi waa mushkiladii ila macna tahay jumlada. taasi waa dhab ahaan dhibaatadii weeye. Number 11. It is not rocket science. It is not rocket science. Meaning, it's not very difficult. يعني wax adag ma aha. waa wax sahalsan. wax adag ma aha. Example keena. Come on. Come on. Assembling this table is not rocket science. يعني waxay la macna tahay dawladan hadaajiskeeda inaad hadaajisid oo samaysid ma aha wax adag. 12. Don't make mountains out of molehills. Don't make mountains out of molehills. يعني وحلا معناتها هاي مشكلة ديار بستدب يار وحوينها كدقين وح يار وحوينها كدقين إلا معناتها هاي. Example كنا She got upset over a small comment. But I told her not to make mountains out of molehills. يعني وحكا حنقضي comment لو soo qoray لكن وحان أشيغي إن wax yar wax weyn ka dhigin in waxbana u qaadanin camal ila macnaha jumlada. Number 13. Keep your chin up. Keep your chin up. Positive aho markasta iska faraxsano camal ila macnaha. Example keena I know you failed the test, but keep your chin up. There is always next time. But keep your chin up. There is always next time. Waa ogahay inaad imtixaanka ku dhacday laakiin keep your chin up. Positive aho iska faraxsano iska يعني نيدها iska jebinin. There is always next time. يعني markasta waqti kale baa jira waqti kale insha Allah ku baasi doonta imtixaanka ila macnaha jumlada. Number 14. I didn't catch that. I didn't catch that. يعني wax la macnaha masala qof baa kula hadlay markaas adiga ku halay asaga si fiican ma u dhageysan waxa rabtayna ku tirada aniga waxa tiri ma maqlay si fiican uma fahmin waxa dhici kartaa I didn't catch that. يعني بحس في عمو مقلين يقصوا علي عمل إلى ما تهاي. I didn't catch that. What did you just say? What did you just say? Number 15. By the bullet. By the bullet. يعني وحلا معناتها هاي إنها قونستي إنها تسميسو وح أذق أدو أذق. مثل وح أد مركز تدريب ودقيسي لكن هذا وان قونستي إنها تسميسو. Example كنا I don't want to go to the dentist but I will have to buy the bull. يعني أنا ما ربينا أتوقع دكتور ilkaha laakiin waan u baahanahay inaan aado yani waan go'oonsaday markaas go'oonsanaya waan aadaya ila macnaha. Example kale She bit the bullet and admitted she was wrong. She bit the bullet and admitted that she was wrong. يعني ayada way go'aansatay go'aanka oo adag ku ah iyo
way qiratay inay qaladkaas samaysay ay la macno tahay jumladda. 16 to step up one's game yani waxay la macno tahay si aad u bilowdo hawlqabad ka wanaagsan. Example-keena, if you want to win the match you need to step up your game. You need to step up your game. hadaa rabtid inaad ku guulaysato ciyaarta waxaad u baahan tahay inaad si fiican u shaqaysid hawlkaaga, inaad si fiican ka dhigtid oo si wanaajisid camal ay la macno tahay. inaad kor u qaadid ciyaarta, inaad hagaajisid, inaad si fiican u ciyaartid. Number 17 to sell someone out. To sell someone out inaad qof sirtiisa sheegto, inaad qof wuxuu uu ku yiri qari aad sheegto. Example-keena, he sold out his friend by sharing the secret with everyone. yani asaga saaxiibkiisa uu iibiyey camal elementa, laakiin saaxiibkiisa sirtiisu sheegay. markuu sirta saaxiibkiisa dadka dhan u sheegay elementa tahay jumladda. 18 play it by ear. Play it by ear yani waxay la macno tahay to decide what to do as a situation develops. يعني inaad wax go'aansatid wax la sameynayo marka ay xaaladda soo baxdo. yani masala yani adigoo qorsheenin siday noqotaba aan waxaas waqtigeeda xaaladeeda aan go'aan ku qaadanayna. yani masala banaanka u baxday, banaanka waa iska baxday, qorshe ma qabin, laakiin hadda kadib waxaa aaday meel oo qurux badan oo meel restaurant aaday. yani maadad qorsheenin laakiin waxaa samaysay oo aan qorsheenin markaa rabtid markaa hadashid waxaa isticmaalaysaa play it by ear. Example-keena, we will see how we feel. We will see how we feel tomorrow and just play it by ear. And just play it by ear yani waa fiirinaa biri sidee aan noqon doonaa, sidaan dareemi doonaa. hadda kadib markaasa fiirinaa, markaasa qorsheynayna, markaasaan go'oonsanayna camal ay la macno tahay. so play it by ear yani siday noqotoba xaaladaas waqtigaas aan ka fakeraynaa, waqtigaasaan go'oonsanayna camal. 19 to stay in the loop. To stay in the loop yani waxay la macno tahay inaad lagala socdo waxyaal ku saabsan, inaad la socoto wax ku saabsan. Example-keena, please keep me in the loop about any changes to the schedule. Please keep me in loop about any changes to the schedule. يعني فضلاً ila socodsii wixii isbedel ah ee ku yimaada jadwalka. I keep me in the loop. Number 20 crack someone up. Crack someone up maxay la macno tahay to make someone laugh a lot. inaad qof aad iyo aad ka qoslisid. Example, that comedian really cracks me up. That comedian really cracks me up. and qofkaas oo komediga ah aad iyo aad buu u qosliyey. He cracks up his friends with funny jokes all the time. yani asaga asxaabtiisa aad iyo aad ugu qosliya, asagoo kaftan aad u qosol badan ay la macno tahay. Number 21 keep your nose clean. Keep your nose clean yani waxay la macno tahay ka fogoo dhibaatada. Example, if you want to stay out of detention, keep your nose clean. If you want to stay out of detention, keep your nose clean. يعني hadaa rabtid inaad ka fogaatid xabsiga, inaad ka baxdid xabsida, waxaad u baahan tahay inaad dhibaatada ka fogaatid. keep your nose clean يعني mushkilad iyo dhibaato ha gelin camal ay la macno tahay. Number 22 to jump on the bandwagon. To jump on the bandwagon waxay la macno tahay si aad ugu biirtid dhaqdhaqaaq ama ra'yi haan noqday. يعني inaad ku biirtid ra'yi mise dhaqdhaqaaq hadda caan noqday, popular noqday. 23 to let someone off the hook يعني waxay la macno tahay inaad qof aanan la ciqaabin ama mas'uuliyad la saarin. Example-keena, the teacher let him off the hook because it was his first mistake. Because it was his first mistake يعني معلمada asaga ma ciqaabin, mas'uuliyad ma saarin, sababta ay tahay it was his first mistake yani asaga qaladkiisa koobaad ay ahayd, ma ciqaabin, mas'uuliyad ma saarin. to let someone off the hook qof inaan la ciqaabinin mise aan mas'uuliyad la saarin. 24 off the top of one's head yani waxay la macno tahay in la sheego wax aanan si fiican uga fakerin mise aanan si fiican u xusuusnayn, yani wax aad si degdega u sheegtay aanad ka fakerin. Example-keena, off the top of my head I think she's been engaged 5 times. yani sidaan u xusuusto, intaan xusuusan karo, waxaan u moodaynaa ayada 5 goor la khatuubtay ay la macno tahay. Example kale isla fiirino, off the top of my head
I would say the meeting 3 p.m. يعني sidaan u xusuusto meeting kulankan wuxuu noqon doonaa yani waxaa la dhigi doonaa markay tahay saacadda 3 markay tahay la samayn doonaa kulanka bilaaban doonaa elemana tahay. Example kale, I can't remember exact number but off the top of my head it's around 50. يعني numberka siduu ahaa ma xusuusto laakiin sidaan u xusuusto konton buu ahaa numberka elemana tahay jumladda. 25. To save something for rainy day. To save something for rainy day. يعني inaad wax u adkaysato ilaa maalinta aad u baahan tahay elemana tahay. Example keena, I'm saving money for a rainy day. يعني aniga lacag baan u adkaysanayaa baan haysanayaa goorma markaan u baahnaado maalintaan u baahnaado oo maalintaas ay tahay maalin aad u baahan doono elemana tahay. So for rainy day yani ma aha maalin roob da'i doono maya maalin aan u baahan doono camal elemana tahay idiomkan. Number 26. Lose my temper. يعني waxay elemana tahay yani aad iyo aad baan u xanaaqay acsaabteed xataa waan lumin karaa camal elemana tahay laakiin yani aad marka u adkaysan karin waxaa dhici karta I lose my temper. Example, she tries not to lose her temper even when things go wrong. يعني waxay isku dayday in aad u xanaaqin xitaa marka ay arrimuhu khaldamaan. Ring a bell. waxay elemana tahay marka ay wax u dhawaaqaan wax la yaqaano laakiin aadan si sax ah u xasuusnayn laga keenay yani si fiican uma xasuusin laakiin waxaan waa taqaanaa camal mise qofkan waa taqaanaa mise waxaan waa aqaana markaa rabto inaad tiraahdo laakiin si fiican uma xasuustay waxaa isticmaalaysaa ring a bell. Example keena, that name rings a bell but I can't remember where I heard it. magacaas waxaan u moodaa inaan aqaano laakiin hadda ma xasuusto halkee ka maqlay ayna macna tahay jumladda. Number 27. You are in hot water. You are in hot water. يعني adiga dhib baa ku jirta dhibaata ku jirta mushkilad baa ku jirta elemana tahay. Example keena, if you lie to your parents you will be in hot water. You will be in hot water. يعني hadaad waalidkaaga been u sheegtid dhibaata ku jirta mushkilad baa ku jirta. 28. In a pickle stuck. In a pickle stuck. maxay elemana tahay inaad ku jirtid xaalad adag iyo dhibaato. I'm in pickle stuck. I'm in pickle stuck. I lost my wallet. I lost my wallet. يعني aniga dhibaataan ku jiraa xaalad adag baan ku jiraa waxaan lumiyay boorsadayda. I'm in a pickle stuck يعني xaalad adag. 29. On cold 9. يعني qof markuu yiraahdo on cold 9 يعني very happy elemana tahay. Example keena, she was on cold 9 when she got the scholarship. When she got the scholarship. يعني aad bay u faraxsaneed markii minxadda heshay scholarship-ka heshay aad bay u faraxday elemana tahay jumladda. Sit tight. Sit tight. waxay elemana tahay fadhiiso meesha fadhidid oo xoogaa suug. Example, sit tight. I will be right back. fadhiiso meeshaas waan soo dhaqsanaya waan imaanayaa haddan imaanayaa. Number 31. Smell a rat. Smell a rat. marka wax laga shakiyo. Example, she smelled a rat and decided not to trust his offer. يعني ayada wax bay ka shakisay. Smell a rat wax bay ka shakisay waxayna go'ansatay inaynan ku kalsoonin dalabkiisa. Smell a rat in wax laga shakiyo. Number 32. Hit the sack. Hit the sack mean go to sleep. I'm really tired so I'm going to hit the sack. I'm going to hit the sack. يعني aniga aad baan u daalay waxaan u socday inaan seexdo. Take something with grain of salt. يعني waxay lamana tahay inaan waxbana u qaadanin. يعني qof baa wax kuu sheegay markaas qofka kale wuxuu ka yiri wuxuu asaga sheegay take it with grain of salt. يعني wuxuu sheegay dhab ha u moodin ha rumaystan dhab ha u qaadanin camal elemana tahay. Example keena, I heard a rumor about him but I will take it with a grain of salt. يعني aniga waxaan maqlay xinta isaga ku saabsan laakiin waxbana uma qaadan doono run uma qaadan doono dhab uma qaadan doono camal elemana tahay. يعني run uma qaadan doono dhab kama aha ma aaminayo camal elemana tahay. Take something with a grain of salt. Number 34.
twist someone's arm. waxay la macnaheedu inuu qof qanciyo qof inuu sameeyo wax asaga oo qorsheynin I didn't want to go first but my friends twisted my arm. يعني aniga ma rabin inaan baxo laakiin asxaabteeda way i qanciyeen waan aaday. ila macnaheedu. Number 35 pull yourself together. يعني استجي اسقبو إلى example كنا pull yourself together. You still have work to finish. يعني استجي ولي وحاسة شقو بهانتين السميسو أو دميسد. Number 36 get the ball rolling. يعني إن الهوشة بلودي. Example we need to get a ball rolling if we want to finish on time. يعني هذا وإنان بلاونا سي أن شقادة وقت جيسة إنان كدميرنا. Number 37 pull someone's leg. يعني إن قف لعياتد لكفتمتد إلى مناتها. Example she's pulling my leg. يعني وإلى كفتميسا. I know I didn't actually win $1 million. يعني وان أوجه أنيجا دب أهانتي $1,000,000 كم جوليسن وإلى عيارسا وإلى كفتميسا. Number 38 make fun of someone. هاي نقف لعيارتي لك افتمت العمل إلمانات. هاي example don't make fun of him because of his accent. يعني أصدقاء كو قسلين عشان accent كولية هل صدو أهلو لهجديسا كو قسلين إلمانات. هاي جملة ده. Number 39 break the ice. إن لسمايو أما لشيغو دادك وح راحينيا أو comfortable كديجيا أو يعني هذا اللي بلاوه عمل إلماتها. Example كنا the teacher told a joke to break the ice on the first day of class. يعني معلومات ده كفتم بيشكتي إني شبيسو يعني قبوجة شراء عمل إني شبيسو مسا student كإني كفر حسو إن student كإني هادلان إني comfortable كديا إني كدكتور تعلاتي so كفتم بيشكتي so break the ice إن ضدك كراحيسيد أو شويك قبوب جاي إن تشبيسيد عمل أنا معناتها. Number 14 spill the beans حل معناتها إن سر موجسد أو شكتد إلى معناتها. أنت أقوله شيل أهان يعني مربت إن صرت شكتد لكن وأسك شكتي أفكاري كصوب هذا عمل. Example who spilled the beans about the surprise party. يعني يا صرت شيء صرت وحفلة السربرايز يا شيء إلى معناتها. Number 41 hit the road حل معناتها إن لبحوا مثلنا سفر لبراو. Example it's getting late so we should hit the road. يعني وضاهنا يعني وصوت ضاهنا وحرقبها هذا إن بحنا عمل اللي معناتها جملة color they hit the road early to avoid the traffic. يعني أيك وين بحين وين بلاوين إني بحان وقتي هوري بحين سي أي ترافيقة وقلين كيف قاعدان ترافيقة. Number 42 bottle up your feelings حلا معناتها إن درين كاغا قريسد إنت أموشين لهاد. Example don't bottle up your feelings talk to someone. يعني درين كاغا حقارين أو موشي أو قف لحظة. Number 43 blow off steam حلا معناتها إن ستريس كمسحناق إسكيريس أديقا وح سميسي. Example after exams I like to blow off steam by playing sports. يعني امتحانات كدب أنيقا وحاربا إن ستريس كإسكيريو أو عيارو سبور. He went for a walk to blow off steam after the argument. يعني وحقوبة حيصعد سو إسكيريو ستريس ضد كذب. Number 44 in the nick of time حلا معناتها just in time يعني وقتي يسويمد عمل مثل وقتي جاس نفتيسة. She arrived in the nick of time for the test. يعني أيضا وحياتي مد وقتي وبهند إن تماد وقتي صح ذا يتمد عشان امتحانك يعني وقتي امتحانك يتمد. Number 45 call it a day meaning يعني هذا to stop working إن شغلة الاستاتيو. We've done enough working let's call it a day. وان شقينا هذا أن استاتينو إلى معناتها. Number 46 back to the drawing board to start again because a plan failed. يعني إناد هذانا بلودت مركو ومشروع مثل بلانكا فشلمو
Example, the experiment didn't work, so it's back to the drawing board. The experiment didn't work, so it's back to the drawing board. يعني tijaabada ma shaqeynin, sidaas darteed hadana waa bilaaweynaa, hadana mar labaadan bilaaweynaa. Number 48. Let the cat out of the bag. Let the cat out of the bag. Inaad si qalad ah sir u sheegtid. Example, he let the cat out of the bag about the party. يعني asaga sirtuu sheegay oo xafladda ku saabsan. Number 48. Keep an eye on. Keep an eye on. Meaning to watch carefully. Inaad wax si fiican u fiirisid, si taxadar ah u fiirisid, u daawatid. Please keep an eye on my bag. يعني شنطتي si fiican u fiiri, yaa la xadin camal. Si fiican u fiiri shunadayda ee la macnaatahay jumladda. Number 49. Get cold feet. Get cold feet. Meaning معناها to feel nervous and change your mind. inaad stress dareemtid oo fikirkaaga bedeshid. He got cold feet before the competition. يعني asaga stress buu dareemay tartanka ka hor. 50. Last but not least, cost an arm and leg. Cost an arm and leg. يعني very expensive. يعني aad u qaalib ah. lacagtiisa aad u badan. Example, that phone costs an arm and a leg. يعني telefoonkaas qaali waay. Okay, darsigana intaas ahaa. waxaan rajaynayaa faa'iido ka hesheen. Please like, subscribe kayga ilaawina, comment-kana ra'yiina ii soo qora iyo darsiyaasha kale ay garabtiin inaan ii soo geliyo. sidoo kale darsigan sarbaabaheen mise idiomkee aan i cajabiyey ii soo qora. waan is salaamay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.